Assalaamu calaykum kusoo dhawaad muuqaalkan waa casharkii labaad ka oo ku saabsan barashada cilmiga kombiyuutarka. Sidee loo qariyaa standard icons? Si aad u qarisid standard icons waxaad u baahan tahay meel bannaan tag, right click ku dheh, view dul tag, raac falaarta hoos soo deg, show desktop icon. Hadda sax ayay saaran tahay, saxda ka qaad. Waad aragtaa wuu qarsoomay. Sidee loo soo bandhigi karaa standard icons? Isla wadadii hadda ayaan raacaynaa. Meel bannaan right click ku dheh, view dul tag, kadib waxaad ka doorataa show desktop icons. macnaheedu hadda sax ma saarno, sax saar si ay u soo laabtaan muuqaaladii ama standard icons. waad aragtaa way soo laabteen. Sidee loo bedelaa muuqaalka uu leeyahay standard icon? Si aan u bedelno, meel bannaan tag, right click ku dheh, personalize. macnaheedu hadda window 8.1 ayaa isticmaalayaa. meeshaas oo kale window 7 wuxuu ka dhigayaa properties. hadda personalize ama properties wuxuu ku yahay ku dhufo. waxaad ka doorataa change desktop icons. waad aragtaa sanduuqa yaraa kuu soo baxayo. dooro kow midka aad bedelaysid, kadib waxaad ku dhufataa change icon. waad aragtaa waxaad doontid ayaa ku dooran kartaa. boqolaal xaba ayaa ku jiraan. ana hadda waxaan dooranayaa calaamadaas gaduuda. okay ayaa leedahay. okay ka soo laabo marka. waad aragtaa inuu isbedelay muuqaalkii shape-kii oo lahaa kombiyuutarka. marka sideen u soo celin karnaa appearance-giisa? meel bannaan right click ku dheh, personalize ama properties wuxuu ku yahayba midkaas ku dhufo, change desktop icon ku dhufo, midkii ahdaadta bedeshay dooro. kadib si aad u soo celisid change icon ma u baahnid, laakiin waxaad dhehaysaa restore ayaad ku dhufanaysaa. waad aragtaa wuu soo laabtay. okay ayaad leedahay, waad ka soo baxaysaa. waad aragtaa inuu noo soo laabtay. taskbar maxaa la lahaa? taskbarka waxaa la lahaa qaybta hoose ee kombiyuutarka ayuu ku yaalaa. desktopka shaashada qaybtiisa hoose ayuu ku yaalaa taskbarka. taskbarkana waxaa la lahaa halkan oo idiin muuqdo ayaa taskbar la lahaa. start menu maxaa la lahaa? start menu waxaa la lahaa buttonkan geeska dhankan bidix ku yaalo ee taskbarka. geeskaas shaqooyinka oo qabtana waxaa ka mid ah in marka aad soo kici rabtid program aad kasoo dhex kicisid. sidoo kale changing setting markaad samaynaysid inaad setting inaad wax ka bedeshid aad doonaysid, meeshan aad ka gasho. haddaad fail raadinaysid aad searchiga ka raadsid. sidoo kale waxaad u adeegsan kartaa marka aad kombiyuutarkaada daminaysid start menu inaad ka gashid si aad u damisid. markii aan doonayno start menu inaan active ka dhigna ama aan kasoo shaqaysiino, 3 nooc baa ugu shaqaysiin karnaa. ugu horeyn midda koowaad ayaa waxay tahay inaad dul tagtid oo left click aad ku siisid. click bis. waad aragtaa inuu soo active gareysmay. midda labaad aad kusoo kicin kartidna waxa waaye control escape inaad ahdid oo kombiyuutarka aad ka dhigaysid keyboardka. midka saddexaadna waxay tahay in aad ahdid aad garaacdid ama aad riixdid keyboardka window keygiisa. 3daas nooc ayaa kusoo kicin kartaa. sidee lock or unlock ugu dhigi kartaa taskbarka? macnaheeda si aad ugu dhigtid taskbarka meel bannaan tag, kadib right click ku dheh. hadeertaan log ayuu saaran yahay. macnaheeda sax meesha sax ayay saaran tahay, saxda ka qaad. unlock waayo. sidaa doonto meeshaa doonta u dhaqaajin kartaa. asiga dhan waa hagi kartaa, meeshaa doonta gei kartaa. log sidee u saari kartaa? isla wadadii hadda ayaan ku laabanaynaa. meel bannaan oo asiga kamid a tag, right click ku dheh, log sax saar leh meesha. waa aragtaa hadda saa doonta u jiid ma soconayo, meeshiis ayuu tagnaanayaa. taskbarka sidee u dhaqaajin kartaa adigoo isticmaalaya muuska? in aad dhaqaajisa marka aad doonaysid waa inuu unlock ahaadaa. marka aad dhaqaajinaysid waa dul tagaysaa, left click ayaa qabanaysaa, dhinacaad doontid ayaa u jiidaysaa. geeska aad doonta ayaa gei kartaa. 4 dhinac geeska aad doontid ayaa gei kartaa. tusaale ahaan hadda korag aad ku dhaafi kartaa, hoostiisa u soo celin kartaa. marka sideed u dhaqaajin kartaa taskbarka adigoo isticmaalaya markaan keyboardka? soo ma ahayn muuska waa soo isticmaalnay. keyboardka markaa isticmaalaysa sidee u dhaqaajin kartaa? ugu horeyn si aad u dhaqaajiso waxaa u baahan tahay inaad riixdid alta space m. falaaraha ayaad ka hagaysaa. kadib
meesha doontid kor ayaa geenaysaa dhinaca ayaa geen kartaa dhinaca kale ayaa geen kartaa adigoo falaaraha ka hagaya hoos ayaa usoo dejin kartaa enter ayaa taabanaysaa sideed u weyneyn kartaa adigoo isticmaalaya muuska taskbarka sideed u weyneyn kartaa meeshaas ayaa tagaysaa labadaas falaar oo kor iyo hoos kusoo baxdo ayaa left click inaad ku dhigto kor u jiidi kartaa waa sidaas ayaad u weyneyn kartaa haddaa yareynaysidna isla meesha ayaa tagaysaa waad qabanaysaa hoos u jiidaysaa waad aragtaa sidaas ayaa u weyneyn kartaa markaana sideed u weyneyn kartaa taskbarka adigoo isticmaalayo keyboardka waxaad u weyneyn kartaa inaad samaysid alta space s ayaad dooranaysaa kadib kor ayaad u jiidaysaa waad aragtaa inuu weynaaday enter ayaad taabanaysaa sideed u qorin kartaa automatically taskbarka sideed u qorin kartaa si aad u qorisid waxaad tagtaa meel kamid ah oo taskbarkiga right click dheh properties ka dooro kadib waxaad sanduuqaas yar ayaa sax saaraysaa oo auto the taskbar okay ayaad leedahay waad aragtaa taskbarka inuu isqarinayo marka aad laakiin falaar dul geysid oo soo baxaya marka ka tagtid oo qarsoomaya taskbarka waxaad samayn kartaa meesha aad doontid meel alaala meesha aad doontid ayaa geen kartaa dhinaca bidix dhinaca midig kor hoos tusaale ahaan sidaan oo kale properties ku dhufo hadda buttonka ayuu taagan yahay leftiga ayaa geen kartaa right ayaa geen kartaa top ayaa baroolinaya okay waad aragtaa qaybta kore ayuu tagay sidee loo soo bandhigi karaa ama loo qarin karaa saacadda kasoo muuqanaysa taskbarka halkan taariikhda iyo saacadda kasoo muuqanayso si aad u qarisid ama aad usoo bandhigtid ugu horeyn meel bannaan oo kamid ah taskbarka right click ku dheh properties ka dooro customize ku dhufo kadib waxaad ka doorataa turn on setting icon on or off waad aragtaa haddeetan clock ama saacadda waa on off kali si aan u qarin off marka aad sameyno waa aragtaa meeshan saacaddii way ka baxday isla haddeer on baroobay on waa aragtaa way soo laabatay okay anina hadda bedelo ma rabo okay sidee loo soo celiyaa standard icons waxaa dhici karta inaad iska dileetid ama ay gacanta kaaga dhacdo tusaale ahaan oo sidaan oo kale uu kaa maqnaado sidee loo soo celiyaa marka si aad standard iconska aad dib ugu soo celisid meel bannaan tag right click dheh personalize ka dooro kadib change desktop icon ku dhufo halkan ay ku qoran tahay desktop icons hadda wixii aan dileynay oo ahaa computer network control baana saddexdaas sax ma saarno tick soo saar kadib okay dheh soo laabo waad aragtaa standard iconskiga noo soo laabteen sidee loo soo kiciyaa application windows inaad soo kiciso marka aad doonaysid noocmaan badan ayaad soo kicin kartaa midda koowaad in aad applicationka dul tagtid double click aad ku siisid waad aragtaa wuu furmay ama in aad samaysid inaad dul tagtid oo right click aad aadid open aad ku dhufatid noocmankaas ayaa loo soo kicin karaa waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waa inuu muuqaalka xiga hadduu alla idmo